wasiirka amuraha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo wafdi ka kooban isaga iyo wasiirka arrimaha guduhu ay socdaal kaga soo laabteen wadanka Itoobiya ayaa sheegay in dalkaasi ay kula kulmeen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Cali Gaas oo ay ka wada hadleen muranka dhanka xuduudda ee u dhaxeeya labada dhinac. aanu la kulanay madaxweynaha Puntland Somaliland waa wadan xor ah oo wali la ixtiraafin hase keligii taagan Somaliland xuduud muayyan uu leeyahay mid aynu ku sameynaa maamulka Ingiriiska ka tagay waanu u sheegnay madaxweynaha xuduudda Somaliland halkay joogto nabadgelyo naga dhaxaysa wanaag baa naga dhaxay waxtar baa naga dhaxaysa. wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde iyo Maxamed Biixi Yoonis waxa kale oo ay ka wada hadleen shirkii ammaanka qaaradda Afrika ee toddobaadkani lagu qabtay magaalada Baxardaar ee wadanka Itoobiya kulamadii ay la yeesheen mas'uuliyiinta wadankaasi iyo madax ka socotay qaaradda Afrika. shirkaas wuxuu ku saabsanaa muxuu ahaayay oo ka hadlayay lunsiga ku dhacay khayraadka Afrika iyo sida uu u saameyn karo nabadgelyada iyo xasiloonida qaaradda Afrika. dawlado fara badan baa isugu yimid dawladaha yimid waxa ka mid ahaa Suudaan madaxweynaheedii Bashiir oo la kulanay oo ay wasiirku shir la yeelanay waxa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradii Suudaan tahay waxa kale oo la kulanay South Sudan madaxweynaheedii iyo wasiir khaarijigeedii waxa kale oo la kulanay Prime Minister Ethiopia iyo meesha kula kulanay inta bashar baanu yeelanay waxa kale oo la kulanay nimankii qaban qaabinayay oo ahaa presidentki hore ee Nigeria Obasanjo